رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي المهد سبحانه وتعالى إلهي وكريم مهدي. waxaan jeclahay inaan wasaxaafada ku soo koobo dhowr qodob oo hadda taagan oo ka mid tahay socdaalkaygii aan ku tagay Nairobi. marka horeysa waxaan hambalyeynaa subxaan dadkii ka soo shaqeeyay magaalada nabadii Elf Weyn. waxaan leenahay ilaahay ay ka jirjasaysiyo beelihii amba qolooyinkiisa ayee si fiican gacanta ku siiyeen waan hambalyeynaa. laakiin waxa u baahantay nabad aan lahayn waxa dadku ducaysan nabadii caano waa in dhulkaas la geeyaa horumarka la geeyaa baan leenahay. dawladdu ka hawlgashaa nabadgelyada la adkeeyaa ciidan midaysan oo reer Soomaaliya la geeyaa shaqooyin laga abuuraa ayaan leenahay oo nabadda la sustain gareeyaa baan leenahay halkaas. waxaan iyagana hambaleynayaa ninka loo doortay magaalada xusbiga Soomaalida Ethiopia Axmed Shide ayaan aad iyo aad u hambaleynaynaa. inaga hore waan u sheegay soonaha shanaad wuxuu noo yahay siday ruushka uu yahay bariga Ukraine ay u tahay 160 dadkeena ku nool. waxaan leenahay dhulkaasi waa dhul shantii Soomaali ku jira ilaa Mooyaale ilaa Ashca oo labada kooneed Soomaalidu degto hoonka ah way ku jiraan. dhulkaas waxa lagu dooran karaa si cadaalad lagu xukumo. waxa ka dhac jiray xukunkii ka hore ka jiray xukun wuxuu ahaa tacaddi badan keenay taariikhda aan lagu haynin tacaddi halka ka dhacay wax meel adduunka ka dhacay adduunka cusub ee modernka ee waqti civilization cusub aanu ka dhacay. waxaan leenahay in dadka Soomaaliyeed halkaas si cadaalad ah ay khayraadkiisa iyo khayraadka hadda soo baxay ku hor jirayba ay loo maamulo nidaam dawladeed oo cadaalad ku dhisan oo Soomaaliyeysan oo qabiileysneen in laga dhisaan jecelahay. nabadgelyada la siiyo dadka Oromada ah iyo dadka Ethiopia oo dhanna waxaan dad diig iyo jaarnimo oo wadaaga in la isku diro qoomiyadaha la isku kiciyo oo adoo madax ah aad ka hawlgashid in qoomiyadu isdilaan si aad kursiga u haysatidna waxaan leenahay waxa soo xaraan weey. marka waan soo dhaweynaynaa arinta waan kala hadlay maalinta dhawto on elfta waan kala hadlay waanu ka wada hadalay on elfta iyo dhaqdhaqaaqa soonaha shanaadba halkan baa laga bilaabay lixdameediyadii jabadii u horeysay maqdal daahir sidii halkan baynu ka bilownay. labadii dagaal ee dhacay 460 halkan baa ahayd quwadu halka ka raacday Soomaaliland baa waa dhulkii aynu u tagnay aawadood inaan Soomaali weyn ka bilowno in xornimadeena u sabqayna bay ka mid tahay. dhulkaasi waa dhul aynu kala maarmin. waxaan jecelahay inaynu waan isku xidhannahay inaan dhulkaasi nabad ahaada. dawladda waxaan leenahay inay roorkeeda ka ciyaartaa oo dadkaas gacan siisa Soomaaliya halka degan si loo mideyn lahaa. waxa khayraadka Ethiopia kula qaybsan kartaan iyo awoodaba idinka Soomaalinimo ah oo midaysan baan leeyahay taasna. waxaan halkan iyadana jecelahay inaan ka hambaliyo gudida musuqmaasuqa dalkan musuqmaasuq iyo iyo qabyaalad ayaa ragaadisay. taas waxay kaliftay in u bixeeni caruurteeni ay naftooda ku horaan qabtaan magaalada Liibiya. waxaan ka xumahay inaan jaamacadda ka soo saaro Fuaad la yiraahdo 2010 in maanu taxamar lagu dilay. taas waxay ku tusaysaa quusta dhalinyarteena taagan tahay. quusta maxaa keenaya waxa weeye keenaya cadaalad darrada qabyaaladda eexda weli intaasaan jirnaa Soomaaliland moojaane wax u kala eexda inankii inantu dhashay inankii inanku dhashay adduunku ma arag. qabyaalad iyo iyo musuqmaasuq aan accountable wuxuu fariistay dalkeenu fariistay.
saasna dal laguma dhisi karo maanta maciishadu cirkay maraysaa shidaalka maanta halku mariyo iyo halku taagnaa maalintii dowladda cusub qabsatay maciishadu halkay maraysa oo arkaysaan waxaan leenahay dalkan waxaa loo baahan yahay dadka la mideeyo waxaa loo baahan yahay dowladdu inay shaqayso waxaa moodaa inay teegadu hadda beriga qabsatay beriga oo taagan yahay taayiradii waxaa loo baahan yahay in dynamics ka socdo dalka adduunka hareerihiina in lala socdaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in dadka wax gashanaya waddanka wax gashanaya loo fududeeyo oo sharcigu shaqeeyo DB woodu way shaqeyn laadahay waxay la shaqeyn laadahay waxa weeye kulba reer baa qabsanaya kulba nin baa qabsanaya kulba hay'ad baa qabsanaysa maalintii dib u dhacdaana inaga khasaare inagu tahay waa meesha qura maanta aan samaysanay heshiis galay waxaa loo qorsheeyey 1,250,000 container inay ka soo degaan Jabuuti 800 container baa ka soo degta oo meesha shaqaalaha Jabuuti ugu badan yihiin marka waxa weeye inaynu dadka investmentka maalgashanaya amba haadeen dadka qaranka ee Soomaaliland ama dad aad shisheeye loo fududeeyaa weeye musuqmaasuqa laga daayaa baan leenahay waxaan aad iyo aad u boorinayaa maareeyaha biyaha waad ogtihiin lacagta lagu shubay ee Soomaaliya Hargeysa biyo lagu sameeyo waxa jira dilaalin yar yar oo hadda doonaysa in mashruuci kastaba ay dilaalaan oo dadka ka naxeen mashruuca lacagtiisa waxa badan waxa bixisay waxa weeye Jarmalka bixiyay dawladda Jarmalku waa dawladda ugu deeqta badan baa weeye Soomaaliland hadda waxay noo sidaa inoo soo wadaa iskuulo ah technical schools waxa leenahay laga daayo maareeyaha magaranaysa musuqmaasuqa iyo dilaalista meeraysanaysa waxa leenahay madaxweynaha waa inaan birka la sameeyo si cadaalad loo sameeyo mid kasta wuxuu soo kaxaysanayaa company yaro aqoontiisa iyo kumidkiisa aan hagaagsaneen oo lacag baan siinaya isoo iyo campaign gareeya halaga daaliya birka marka la furiyo baalaha laga daayo campaign dhalinyarta yar hadda hunguriga la soo baxdayna waxa leenahay xishooda dhalinyarta xishooda inta madaxtooyada soo dhegdhegaysaan ilaanimada joojiya baan leenahay waxaan ka sheekeynayaa insha Allah taala arinta caaraan sheegaya caarre waxa weeye waa tilmaam xun buu inagu yahay yani marka ay jabhadi ka dhex samaysay dal de waxay muuqataa inay tahay dal magaalada mustaqbalkiisu aan fiicneen innaga waxaan u aragnaa arinta caarre inay ahayd arin la qoorsaday waxay ahayd in lagu daro arintii ciil afweyn waxay ahayd arintaa wax dhalisay ninkaas oo ciidamada ka goosto waxay ahayd arintii afweyn ka dhacday waxay nabadii la waday in isna lagu daraabe package la iska dhigay haddana waxaan leenahay oo abil gareena caarre Soomaaliya way jirisaa nin mulkhumuruq leh ma burburin karo waxa fool xumo ku ah oo taariikh xumo ku ah inaad maanta cadowgeena aan noo ahaaye dalkeena ku soo duulay inaad tiraahdo waxay siiyeen saldhig waa fool xumo ku tahay waxaan wada hadalada madaxweynuhu ku furay dawladdu waxa weeye inaad aqoonta weeye grievanceska aad leedahay ka cabashada inaad keentaa weeye taariikhda Soomaaliya kama dhicin cadow la isku soo raaco waa barmadow baa weeye maalinta ninka kaliya ahayd anaga nidaalaya la taaban beersan ana madaxweynaha u tagay markii beeshaad uga codsatay oo ninka ayaa la taabanin ayaana moodin reer loo yarinayo arintiisa hadalkaadiyo tolkii baa qaban doonay laakiin hadda waxa muuqataa inaad fogaatay laakiin Soomaaliland waxaan ku leeyahay ma burburin kartid adoon baa iscaabeynaya qaado heshiiska qaado waxaan jeclahay inaan ka sheekeeyo socdaalkaygii aan tagay Nairobi 3 maalmood iyo 4 habeen ku maqnaa dan qaran baheed guul fiican waan ka soo gaarnay beentii lagu dhuriyay magaalada Saaxay international community-ga waan ka soo baabinay Soomaaliya sanaagna in la wada dago waan u soo sheegnay togaraqan ee dalka Soomaaliya tahayna waan ka soo sheegnay
puntland wax la yidhahdo dal inaanu jirin waanu soo sheegnay labada gobol ee soomaaliya ugu bisaarsanaa ugu faqiirsanaa ugu dadka yaraa bay ahaayeen inaanay waxba naga qaadi karayna hadday soo dhaqaaqaana aanu qabsan karno garowna waanu sheegnay xagga cumaamada halkaa la fadhiya ee sooliya sanaag annagaa lehna waxaa leenahay ka daaya sheegashada waa la ognahay si dalka loo wada leeyahay gobol qura oo Soomaaliland oo qabiil kaliya degaa ma jiro beenta ku dhurisa international community-ga waxaan ka joojiyay beenta joojiyalena waxaanu aad iyo aad aan ku soo boorinay islana meel dhignay in waxaan dhan mushkiladu ay tahay Soomaaliland deel meedka lagu xiray yani qof aan dabaalad aqoon hadaa qof dabaal yaqaan lagu xiro dawuu iska furfura inta la degin si aanu nala degin waxaan wada hadalay bilaabay Soomaaliya hala bilaabaan nidhi madaxweynaha waxaan kula ku boorinay inuu wada hadalay oo culays saara si loo bilaabi lahaa laga baxaa tuuladan yar Togaraq laga baxaa beenbeenta laga fadhiyo Garoowe laga baxaa oo la wada hadlaa Soomaaliya dalku wuxuu ahaa Muqdisho iyo Hargeysa tuulada yar meel ka soo baxay karan mayno hadda adduunku oo tagtagaba marka waxaan leenahay deel Garoowe warwan iskaranayna Soomaali maanta nabad u baahan tahay maanta si isku baahan tuulo isku baahna lana waxa weeye Ethiopia ka socda magaalada saay isbedel weyn isbedelkaas Soomaalinimo ayaa lagu hagaajin karaa Soomaaliland waa dal jiray waa kii 60kii ahaa waa kii constitution-kiina samaysanay laba dal isku darsamay inay dhaal iska taana ma habeen baabacada tema ka soo bixi Soomaaliland Soomaaliya ku soo noqon mayso waxaan ugu soo noqonay Djibouti baa iska tagtay 2020kii NFD baa Maxamed Siyaad Barre fasaxay 2018kii Daa'if Fahad ku heshiisay Aramoy eedkii Mingisde ayaa ku heshiisay oo Soomaaliya tagay wax anaga dusha naga kii saaray nabadu fuushantiin marka baarnay waxa weeye laantii noolaan mayno laantii hadaba dhintaan leena diiman meena insha Allah taala walaa nuriyi mareen baalanay haddaan doonaysan $2 walaal noqono baan ku soo wada hadalay waxaan ku soo hadalnay $2 walaal oo wax wada yeelan kara military pact baan jecelnahay Soomaali maanta iyada dalka ugu foolxumada idinka keenay baan foolxumadana idinka keenay anagu inteedii waan hagaajinay intiinii baa qasan ay dila hagaajino wala hada noo soconayaan siyaasiin badan reer Soomaaliya soo aragnay Axmed Madow baan soo aragnay Axmed Madow isna saddex gobol goostay waxaan ahay dawlad baan ahay ayuu teeni dafiriya ma dafiriya dawlad baa hayeen buu wanaka uu aqli wanaagsan wogta marka waynu Xasan Sharif Xasan waan soo aragnay waa in dadka saaxiibi ka samaysan ma inay Mansuur fariisan ka caaytama ma shaqada weyn oo dhamaatay ma dawladda aqligeenu Mansuur dhaafi waayay ma waa adduunka la macaamilna saaxiibiga in baday Soomaaliya saaxiibayaan waxaan hayo ku soo dhameeyay waxa weeye madaxweynaha waxa leeyahay waxa loo shaqo badan baa jirta challenge ka badan ma hagaagi hadii aan gudaha la hagaajin oo dadka la midaynin dadka la miday leenahay ha laga soo saaro sharci nimankan uqaash ah dadka wada mikrofoonka sita nimba wuxuu doona ku hadlaya hanjabiyo wuxuu Axmed Madow igu yiri shanta Soomaali meel intuu soo fadhiista reer kale uu hanjabiyo Soomaaliland baa laga haya ayuu yiri waa marta meesha uu garay kaga helay way marka gareemay waxaan leeyahay adeer xishooda dawladda haddana sharci wadda kala qabanin qof kasta sharci gacanta ku qaadanaya waa in sharci laga soo saaro waa in magacdilka shaqa laga soo saaro waxaan iyadana aad iyo qolada in kastoo aan baarlamaankeenu yahay baarlamaan waqtigiisii dhaafay haddana musuqmaasuqu soo saaray dee waxaan jeclahay gunta laga gaaro waa in dalkan uu ragaadiyo musuqmaasuq waxaan caan ku noqonay oo caado inuu ahaan jirin in lagu tartamo boobka ummadda oo dadkan arkay aan maalintii mag ula cunteeya in xoolooda la cuno qaaxana ka qaadi doona waa arki doontaan iyo TB ka qaadi doona marka wassalaamu calaykum